سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد هل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم راحت روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام ومن ذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. walaalayaal waa ciise maxamuud oo idin leh ciid wanaagsan, ciid mubaarak, sanad walba idinkoo nabada ciideeda oo idinku soo gasho, dhammaan daawadayaasheeda iyo dhammaan ummadda muslimiinta meelay joogaanba ciid wanaagsan baan idin leeyahay. ilaahay ha inaga aqbalo camalada wanaagsan, inaga iyo waalidkeenba allah inaga aqbalo, ummadda islaamka oo dhan allah ka aqbalo. ilaahay inta dhiban ee muslimiinta ama jeelal ku jirta ama lagu ciqaabay ku jirta ilaahay ha ka furfuro, ilaahay ha ka sii daayo, ilaahay ha u naxariisto, ilaahay dhulka islaamka oo dhan nabad iyo nabadgelyo ha ka dhigo, nabad, barwaaqo, horumar ayaan la rajeynaynaa insha allah dhammaan ummadda muslimiinta siiba waddankeena oo muddada badan 27 sannadood hadda dhibtu ay ka taagnayd. ilaahay dhibta hayna ka saaro, dhibtuna ina ka bixi mayso ilaa aynu inaku isu qalbi fayoogaano oo aynu noqono maaragtay xiqidka iyo xasad weeye waxayna hayaan. qabyaaladeennu waa xasadka ilaa aynu iska dhaafo, ilaahay dhibtayna ka dulqaadi maayo. marka waxa weeyaan sharka maanta waddankeenii ka holcaya innaga ayaa qaboojin karna, isku duubni baynu kaga bixi karnaa. dhawaanaha kan dadku alxamdulilaahi waa la wanaagsanaa, in badan baa yani jaanta isla heshay. waxaan ku boorinayaa dhammaan ciddii inta ilaahay ka baqaysa inaad sidaa ku wataan, waayo dhibta waddankeena taagani maanta way waa fara badan tahay. waxaa weeyaan in badan oo ina ka mida maanta waynu ciidnay, siiba dadka dibadaha jooga magaalooyinka waynu ciidnay. laakiin waxaad ogaataan 90% dadka Soomaaliyeed inay dhiban yihiin oo ciidda tanaanay farxad u ahay. waddankeena burburkii wuxuu soo saaray dabaqado ayuu soo saaray, waddankii 2 dabaqadood oo kaliya burbur. waxa weeyaan dabaqad dheregtay
وصاد ركتين يعني دركتين ترند عدي يدبقت لوكا تالا صومتك maanta ubad badan oo ah aqlabiyadii maanta dadka maxaynu nahay inta qurbaha jirta ama inta maaragtay xoolaha haysta maxay tahay waa boqolkii tobanka intii kale saasay u jiiftaan dadku marka danyar leeyahay dawlad baa lalahaan jiray wax walba oo maaragtay dee dawladii ay ku beegnayd bay heli jireen ya تعليم بلاشة عافمات بلاشة ماركتي بيها بس كيران بلاشة قرقال dhibaatooyinka dabiiciga ay nala kulmo sida ama webi fataha ama abaaro dhaca ama waxaasoo dhan waa laga gurman jiray soomaadka wixii maanta ma jiraan waad aragtaan maanta yani maalinta ay abaari dhacdo macaluushu waxay laysaa kumanaan bay laysaa waxaasoo dhan dawlad la-aanta keenaysa maadaama aynaan dawlad aynaan haysan isuma gurman karo xanuun yar baa meel yar ka dilaacaya dhammaan waddanka dhan ku faafaya baa dhici jirta daacun baa dhici jiray xanuuno kalaa dhici jiray waqtigii dawladda waxaa laga yaabaa dadkani daawada badankoodu inaydaan dawlad soo gaarin baa laga yaabaa insaan dareemayo dee dhallinyaraa u badantihiin inaydaan dawladdii iyo waqtigii wanaaggii inaydaan soo gaarin baa laga yaaba soo marka meel hadduu duucan ka dulaaco meeshaasaa la karantiimeyn jiro la goyn jiray dhakhtarrana loo diri jiray halkaa lagu daweyn jiray dadka soo marka cidi kama bixi jirin eriyada sidaas ayaa ummadda inta kale ku badbaadi jirtay halkaana lagu daweyn jiray dadka oo lagu xakameyn jiray xanuunka abaari markay dhacdo waa loo gurmin jiray oo yani taariikhaha waad ku maqasheen abaarihii yani abaarti dabadheer oo kale iyo ee laga qaaday dadka gobollada waqooyi laga qaaday ee koonfur la geeyay ma jirin cid macaluulu dhimataa ma jiri jirin soo maadka laakiin waxaa kale innakaa gacmaheena ku keensana qofku cidna ilaahay cidna ma qayiro yani xaaladda ay ku sugan yihiin hadday nimco tahay kama bedelo ilaahay iyagu iska bedelaan hadday xumaan tahayna kama bedelo ilaahay iyagu iska bedelaan waxaynu ahayn dad nimco iyo wanaag ku nool dabeedna xumaan baynu ku bedelan maanta waxaa la rabaa inaynu xumaantan aynu ku jirno inaynu wanaag ku bedelano baa la rabaa inaynu samayn karno marka waxaa weeyaan jaantaa la isla helay waxaan rajaynayaa inay sii socoto in qofku uu ka fikiro oo qabyaalada wax ku tari mayso qabiilka waad u dhimanaysaa laakiin adigaa iska dhintay ubadkaagii adigay kaa agoomoobi cid u naxariisanaysaa ma jirto hooyada adigun bay kaa goblantay cid u naxariisanaysaa oo ku bedelaysaa ma jirto qabiilka waxaa lagu baahan yahay markaa intaa ad adigu dagaalamaysid baa lagu baahan yahay laakiin maalinta aad ku dhimatay wixii kaa dambeeyay cidina eegi mayso marka intaa qulanba garan weyda caqligaagu ku siin waayo wuxuu qabiilku yahay intaas qulanba ku siin weyn soomaadka diiniyan waa xaaraan rasuulka calayhi salaatu wasalaam isaga oo asxaabtiisii la jooga maalin maalmaha ka mid ah uu ka yara maqnaa in yar buu ka yara maqnaa nimankii ugu tegay madiina ugu tegay qoos iyo khasraj ayaa nin yahuudiya baa dhex yimi wuxuu yidhi nimankii inuu maaragtay dee wax ka xumaa caloosha waxay ka xumayd sida muslimiintii maaragtay ee jaanta isula heleen oo wanaagga dhex yaalla ayuu ka xumaa yahuudigaas marka meelgeedaa dad badan ay harsanayeen halkii ugu yimi wuxuu uga sheekeeyey beri ay jaahiliyaddii beri ay islayn jireen buu uga sheekeeyey markaasi ma garanaysaa berigii aad isdhisheen oo reer hebel oo alla reer hebel maxaa berigaa lagaga taray waa la mariyey soomaad kale marka gabaygii hebel tiriyey berigaasoo waa kan waxa dhacday in layskula kacay meeshii wax fidno weyn buu dhex dhigay waa layskula kacay marka rasuulkii calayhi salaatu wasalaam ayaa u yimi wuxuu yidhi maaligoo dhex jooga baad qurankii jaahiliyadda ku dhooqatay ya iskaga taga waa quran qabyaalada waa quran ka taga waa uraysaa ee ka taga halkiiba cadal uu kusoo wada noqday oo ay gees iska wada taagay
marka walaalayaal qabyaaladu waa qurunka ah wax allaale iyo waxaad ku faa'iidaysaa ma jirto way iska dhacdaa marmar dee in waxaanigaygan maxaan idinla hadlaayo marmar waad iga arrimo caynkaas waad iga dareentaan laakiin waa waxaan ku khasbanahay waayo waxa aynu ku jirno oo dhan maadaama aan siyaasad ka hadlo mararka qaarkood waxa aynu ku jirno oo dhan baa qabyaalada marka dee way dhacaysaa inaad marmarka qaarkood wax samaysid tusaale ahaan waxyaabaha baad is odhanaysaa marmar beri dhexdaasa maalmo dhexdaasa waxaan is idhi niman maaragtay arrin ku kacay xun baan is idhi maaragtay nimanka cambaaray hadii goorna waxaan jeclay inaan daliil u hayo wixii waxaan sheegayo qofka ka sheegay inaan daliil u hayo nimankii hadalkaa ku kacay arrintaa ku kacay baan tiriyey waxay ii noqdeen 6 nin 6dii nin 5 nin baa isku reer noqday anigii laftayga waa arkaa qofku markaan usoo bandhigo si qalad buu fahmaya marka 5tii isku reerka ahayd baan mid ka saaray kii aan is waa ugu dhibiyaryahay baan ka saaray soomaadka 4tii kale iyo kii kale ee ka reerka gooniyaha wixii baan intii baan wada eeday kuma nabadgelin dabcan waxa laga arkaya in qabyaalad badan baa laga arkaya marka waa iska dhacdaa marar caynkaas laakiin miyihi anigu nin qabyaalad shaqa ku leh raba wanaagga soomaaliyeed baan jecelahay meel kastoo ay joogaan ilaahayna ayna fahamsiiyo wanaagga iyo dadnimada aynu leenahay haddii u barta taariikhda iyo dhulkeenu siduu ahaa barwaaqaynu joognay waxaynu lahayn dawlad xoog le baynu lahayn waxaynu lahayn yacni warshado fara badan baynu lahayn nooc walba leh ilaa 400 oo warshadood way ka badnayd oo yaryar oo nooc walba samaysa mid saabuunta sameeya mid baastada samaysa mid tamaandhada sameeya mid sharaabka sameeya mid ilaa 400 oo baa taqriiban tirada bay ahayd markii ay dawladda ay dhacday Soomaaliya oo inta badan gaar loo leeyahay dawladduna wax badan ay lahayd wax walba inaga isku filnay anta waad aragtaa waxaa iska dhaaf beerihii baa laga dayaca beerihii baa waxaad arkaysaa in dawladda basal laga soo iibsan basal Soomaaliya marka waxa weeyaan dulinimada inaga isu keennay Soomaaliyeed inaga isduleynay ilaahayna ilaa adigu garatid oo aad iska dulqaaday dulinimada oo aad wanaag ku bedeshid kaa dulqaadi maayo maanta arrimuhu waxaad moodaa inay soo yara fiicnaanayaan xagga dawladda xagga laakiin yaan la degdegin oo maaragtay haddaa maalmaha kan waxaa jirtay maaragtay arrimo wax iska hubsada ilaa wax la hubsado yaan lagu kicin oo la qaynin oo maaragtay eedaymo iyo arrinta ninka hadda sarkaalka ONLF laynoo sheegay arrintaas oo arrin cad maaha anigu markaan arkay websaydadii iyo wixii soo qoray waxay ku leeyihiin wasiirka amniga ay dee ka sheegeen arrintaa waxay ku leeyihiin wuxuu yidhi arrintu waa arrin xasaasiya waqtigeedii iyo goorteediina ma joogno marka waqtigeedii iyo goorteedii yimaadeen baanu ka hadlayna hadalkaa waxay u fasirteen inuu yahay ninkii la dhiibay ma noqon karo hadalkaasi ninkii la dhiibay Soomaaliya marka uma warhayno arrintaas lama odhan karo waa sax mana suuragalna ma caqligalna maaha inta laga soo furfuray maamul doonayay inuu dhiibo ay dawladdu intay ka soo furfurto ayay iyadu dhiibaysa suuragal maaha marka waxa la hubsado yaan la degdegin ilaa ay wixii ku caddaadaan yaan maaragtay laga hadlin inahaasaan maanta u soo galay khayr baan idiin rajeynayaa dee waynu wada soconaynaa channelkan inta dhan igu xiran daawadayaashaada aad baan idinku mahadcelinayaa waxaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba ciid wanaagsan ciid mubaarak sanadkan sanadkiisa ciid sidaas oo kale iyo khayr iyo barbaabo iyo caafimaadku ciida ilaahay dalkan haynoo hagaajiyo intaas ayaan maaragtay inahaasaan kusoo koobaya waxaan usoo galay just inaan ciidda un idin salaamo intaan ujeedadeedu intaas un bay ahayd inaan ciidkeeda salaamo un bay ahayd khayr baan idin rajeynayaa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته